بسم الله الرحمن الرحيم وكما سنت هذا ورئيسك marka koobaad horta waxaan rabnaa in aan tacsi u dirno dhalinyaradii meeshaas ku leetay intii dhimatay Allah u naxariisto intii dhaawacan Ilaahay ha u boogadhayo waxaan rabnaa oo kale in aanu sheegno in meesha ay ka dhacday dib weyn dibtaasna kulli cid baa mas'uuliyadeeda iska leh waan ka hadli doonaa baqa aan dirayna marka waxa weeye dadka Puntland aan u diraynaa in dalka nabadiisa iyo xasiloonidiisa iyo wadajirkiisa la ilaaliyo waa tahay meesha sida xustay madaxweyne dhib baa ka dhacday dad baa ku dhintay khasaaro dhaawac iyo dhimasho waa yimid yaad u jeedinaysaan mas'uuliyadda inay qaadayaan falka halka ama dhibka halka ka dhacay falkii meeshaas ka dhacay si aad ah ayaan u cambaareynaa hadaan odayaasha meesha isugu yimid wax laga baaqsan karay ahayd wax sax maysan ahayn dabcan waxaanu rabnaa inaan sheegno Puntland dawlad bay leedahay irada kaliya laga galana Puntland weeye dambigaas waxa iska leh iyo mas'uuliyadda lama wada laha loomana sinna waxa iska leh cidii timid ayadoon idan ka haysan dawladda Puntland oo amar la'aan ma taqaan inta diyaarad soo qaadatay boosas iska timid shaqaaqada meesha ka dhacdayna mas'uuliyadeeda waxa iska leh ay ugu horeyso gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka iyada ayaa meesha timid amar la'aan bay timid aan la hadalna dawladda Puntland waana la xiriirnay waxayna noo sheegeen inaysan inaba hal ekaatay wax aan la socodsiinin imaatinka iyo hawsha meesha ka dhacday iyada ah midada kale waxaan ugu maqaalasaan kulli aan maqlayno in dawladda madaxda sare ee dawladda kale oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay ugu horeeyaan in arinta laftigooda ay waxba ka ogeyn kana xumaadeen sida wax u dhaceen Senator Cabdiraxmaan Faroole odayaashii deegaanka tiin Nairobi ayaad baaq ka direysaan soo ma habooneen in arintan aad fargelisaan oo meesha tagtaan maadaama dhibkan uu hore uga dhacay meesha waqtiga xaadirka oo hadda la joogo anigu hadda aan ka imi Cabdiraxmaan waa joogay deemeenshu iyadoo dibadda laga joogo iyo iyadoo la joogo labadaba mas'uuliyad baan naga saaran meesha naga beegan baanu ka oranaynaa hadda bal marka ugu horeysa bal wixii dambe gaar la gaaray waxaanu diraynaa baaq baan ka soo saaraynaa wixii ka dhacay meesha anagoo odayaasha inta fadhiya ah oo madaxweynaha hore aan labadaba meesha ka soo shaqeynay aan ugu horeyno baaqaasna waxa weeye tacsiida guud oo raggii halka ku dhintay oo difaaca dalka ahaa oo lagu tiirsanaa oo waliba magaalada Boosaaso gaar ahaan si gooni u shilsanaysay halka la isku laayay dhibaatadaas baanu ka tacsiyeenaynaa ilaahayna waxaan uga baryaynaa inay naxariisto waxaan kaloo soo jeedinaynaa in loo guntado dhaawacaas dawladda Puntland iyo dawladda dhexe labadaba maadaama dhibaatada ay ka timi gudoomiye ku-xigeenka koowaad oo baarlamaanka golaha shacabka iyadu ay dambiga gashay rabshadaasna ay keentay iyadoo baal martay inay la xiriirto dawladda Puntland oo magaalada caasimada ahayd oo ay dawladda madaxweyne ku-xigeenkii ku simi ah oo fadhiyo intay soo dhinac madhay Boosaaso intay tagtay uu yeeratay ciidamo awalba hore isu qabtay oo dhibahalka ka jiray qaarkood inay iyada nabadgeliyo iyo ammaankeeda sugaan iyada arinta mas'uuliyadeeda iska leh ciidana lama wadaagto hore iyo gadaal midna waa Saadiye Salaad waa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka maaha ku sime madaxweyne dastuurku wuxuu qeexayaa artikelkiisa 94 baragrafka koowaad gudoomiyaha aqalka golaha shacabka madaxweynaha haduu maqan yahay ama xanuunsan yahay ku sime ah ku-xigeenadu shaqo kuma leh ku-xigeenadu madaxweyne gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ayay ku sime u ahaan karaan uma ahaan karaan madaxweyne mas'uuliyadda dhibkaas dhacay ee Boosaaso ka dhacay waxaad dusha ka saarteen gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka federaalka ma ku muuqataa si uun in Puntland ay mas'uuliyad dhinaceeda u qaadi karto arinta halka ka dhacday anagu waxa deer arintaas siday u dhacday oo filinku u samaysmay waa iska caddahay taas ma leh cid la iska weydiiyo waxa dawladda dhinaca kale oo loo yimi iyada ay leedahay uma aragno anagu haba yaraatay Abdulli Puntland sidaan la soconno isimaa loo baxsan jiray markay arrimahan oo kale dabcan dhacaan wararku waxay sheegayaan in hawshan ay isimada laftigooda ku daaban yihiin maxaad iyaga baaqa u direysaan والله horta waxa weeye ismadu door bay leeyihiin Puntland dabcan saa sheegtay doorkooduna doorka nabadeynta iyo mataqaana beelaha heshiisiintooda wixii la xiriira weeye laakiin markay timaado dawladnimada iyo nidaamka dawliga waxa dawladda markastaaba dawlad baa ka jirta Puntland dawladii markaa jirta ayaana mas'uul ka ah wixii la xiriira maamul iyo nidaam iyo dawladnimo iyo kala dambeyn intaba ayaa loo xilsaaray iyaga amniga ka mas'uula iyaga siyaasadda ka mas'uula iyaga dhaqaalaha ka mas'uula iyaga arrimaha bulshada ka mas'uula dawladda ayaa doorka iskale in loo gacan dhaafana maaha
laakiin yani doorkoodii simo iyo nabadoonnimo iyo mataqaanaa iyo ulbah lahaan jireen weligood lahaayeen de wuu u bannaan yahay waana looga baahan yahay marka inay doorkaas qaataan laakiin wixii dowladnimo la xiriira ridda keliya oo laga geli karay puntland waa dowladda puntland weeye markii ay timaado nidaamka dawliga waa tahay dhibkaas dhacay oo haatan dadka badan ay ku dhinteen kuwana ay ku dhaawacmeen xaaladda halkaas hadda ay taagan tahay xaggee looga sii socon karaa oo maxaa xalka kama dambaysta u aragtaan ana waxaan leenahay waxaa horta muhiim ah in nidaamka iyo qaab wada shaqayneed oo wanaagsani uu dhex maro dowladda federaalka dhexe iyo dowladda puntland dowladda cusub ee madaxweyne xasan sheekh iyo prime minister xamza waxaan rabnaa in yani saanqaad wanaagsan ay ku bilaabato xiriirkoodu si fiican u wada shaqeeyaan markaas waxa weye khilaaf soomaaliya waa soo dirooday mana rabno